kaadi baxsadku waa in qofku lumiyo xakameynta kaadi haysta lana soo diristo hoos u dhac nololeed taas oo ku timaada marka uu qofku qufaco ama uu hindhiso kaadi ka soo baxsanta keentana walwal la xiriira nadaafad darri iyo bulsho kacabsi ay sababayso kaadida uu dareemayo qofku inay ka soo urayso kaadi baxsadku waxa uu ku dhici karaa da' waliba laakiin waxa uu ku badan yahay dadka waaweyn kaadi baxsadku maahan waxaan la daweyn karin haddii uu saameeyo nolosha waa muhiim in bukaanku si dhaqsi leh ula xiriiro takhtarka waayo waxaa lagu xallin karaa si fudud nolosha oo wax laga bedelo iyo dawooyin kooban oo la qaato calaamadaha kaadi baxsadka 1 stress incontinency oo ah in kaadidu baxsato marka uu qofku culays saaro murqaha kaadi haysta sida inuu qufaco hindhiso ama walax culus qaado 2 urge incontinency kaadi si degdeg ah u qabato qofka oo uusan awoodin celinteeda khasabna ku ah inuu kaadiyo qofku markaana ay baxsato 3 overflow incontinency asaga oo qofku qaban shaqo ama hindhisin kaadi uga timaada si tartiib ah waxaana sabab u ah kaadi haysta oo aan markii horeba faaruujin kaadida maxaa sababa kaadi baxsashada kaadi baxsashadu maahan cudur laakiin waa calaamad waxaa sababi kara habdhaqanka qofka sida waxyaabaha uu isticmaalo maalinkii xanuuno ama isbedelo ku yimaada habdhismeedkiisa jirka waxaa soo dadejin kara isticmaalka kofeega jukulaatada cabitaanada aashitada leh raashinka basbaaska leh iyo dawooyinka dhiikarka waxaa lala xiriiriyaa kaadi baxsadka infectionka kaadi mareenka caabuqa qanjirka prostate ee ragga calool xiranka oo marka saxaradu buuxiso malawadka ay soo riixdo kaadi haysta mararka ay joogtada tahay kaadi baxsashadu xilliga uurka oo ay sababayso koriimada ilmaha iyo kala baxa minka iyo sidoo kale isbedelada hormoonada gabowga oo yareeya awoodda kala baxa kaadi haysta isla markaana sababa kaadi baxsadka xilliga caadi joojinta dumarka oo hoos u dhaco hormoonka estrogenka kaas oo xadeeya gidaarada kaadi haysta qanjirka ragga ee prostate oo barara isla markaana isku aadiya kaadi haysta qataraha caafimaad oo ay keento kaadi baxsashadu nabro maqaarka iyo caabuq ku dhasha oogada maqaarka caabuq kaadi mareenka oo soo noqnoqda heerka nolosha ee qofka oo hoos u dhaca sidee loo xalliyaa kaadi baxsadka ugu horeyn waa in qofku noloshiisa wax ka bedelo joojinta kafeega cabitaanka aashitada leh cunista basbaaska nadaafadda uu qofku ku dadaalo isla markaana uu qalajiyo halka ay ka gaartay kaadida samaynta jirdhis loo adeegsado kafka iyo miskaha pelvic floor exercises si dhaqsi leh inuu qofku mar waliba suuliga u isticmaalo haddii uu kaadi dareemo xadeynta cabitaanada iyo waxyaabaha dareeraha ah ee uu isticmaalo qofku iyo ugu dambeyn daweyn haddii cudur sababay uu jiro